dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Sheekh ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii hubaysnaa ee lala beegsaday xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland. dadweynahaasi ayaa xukuumadda Somaliland ugu baaqay in sharciga la hor keeno cidii weerarkaasi ku soo qaaday xildhibaanka, waxayna sheegeen haddii xukuumadda Somaliland dadkaasi soo qaban weydo in ay sameyn doonaan argoosi. waxaan ka hadlayaa dhalinyarta imika soo baxday qoriyuhu cusub yihiin ee odayada qoriyaha loogu dhiibay. waxa dhici doonta wasiirka maanta la rasaasiyayna ka yara la qola ah inaanu anaguna bari ugu dhiibi doono. dawladdu taa ogaato aqalnimada wasiirkana inaanu burburin doono shacabka ka saari doono. dawladdu sidaa ku ogaato nin seexdayna inaanu nabad ku soo toosaynin. dawladdu taa ogaato dadkan anaga haddaanu nahay qolada Fina Faarax dadka waxaanu nahay qoriyaha dadka u sheegay rasaasta waanu idin hayna qoriyina guriyaha yeelaan u sheeg dawladda. mas'uulka xildhibaanka Maxamed Faarax Qabiile in xabadu qalma maaha in maanta inama yar loo soo dirana maaha isagoo xildhibaanku ku eedeeyay dawladda inay ku lug lahayd wasiiro ka tirsan dawladda. waxaanu dawladda si sharaf lagu codsanaynaa inay ka qabato inan ka yar xildhibaanka rasaasayay ee Hargeysa jooga ee waliba Hargeysa ka dhaxal hadlaya in xukuumaddu ay waajibkeeda qabsato. haddii ay qabsan weydo isku dhac baa imanaya bulsho arrin fawxun weeye arrin loo dul qaadan karo maaha. haddii bulshada wax ka qaban weydo dawladdu annaga waajibkeeda gudan doona. ninkii xildhibaanka xabadii Hargeysa ku hadlaya isagoo Hargeysa falkii ku sameeyay Hargeysana ka hadlaya dawladdiina Hargeysa ay joogto waxa loo qaban waayay waa su'aal calaamad su'aal baa ka saaran halka calaamad su'aal baan saarnay halka dawladdu xildhibaanka habeenka dhawaato lagu rasaasay gobolka Hargeysa ninkii rasaas ridayna uu gobolka dhex jooga uu ka hadlayo ay dawladdu wali oo xalaalo talaabo sharci aan qaadayaan jirin. dawladdu ha cadayso oo ha shaaciso ninka inay soo qabarsi inaan soo qabanaynin. dawladdu talaabo sharci ah qaado haddii qaadi weydana isku dhaca meeshii imanaya xilka shaqada dawladdu ka dambayso ma noqon xildhibaanada sharciga lagu toogto qofna ma qoro xildhibaanka sharci lagu toogto marka anagu waan ka dhiidiyayna xildhibaanka sharci laga toogtay. assalaamu alaykum jawaabta sama bixinayda dawladdu qaar hore waa lagu gowracay waa lagu jarjaray halkii bay taala. dawladdu haddii aan arinta waxba ka qaban iyadoo taala ayaanu leenahay wasiirada rasuul mucaaridku xaq uu leeyahay wixii dhaliilay inuu sheego. haddii la yiraahdo hadli oo telefoon loo soo diro gudoomiyaha uu telefoon baa loo soo diray madaxtooyada looga soo diray waxa la leeyahay halka iyada dawladdu wixii meesha ka dhacayda ka mas'uul ah. xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Somaliland dhaliilo kulul u soo jeedinayay waqtigii ay waday xeerka takaaliifta wadooyinka. xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile ayaa isagu ku eedeeyay weerarkiisaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Somaliland, balse wasiiradaasi ayaa iyaguna dhankooda iska fogeeyay in ay ku lug leeyihiin weerarkaasi lagu soo qaaday xildhibaanka. Somaliland ayaa lagu tilmaamay geeska Afrika 22 sanadood ee ugu dambeeyay goobaha ugu xasiloon hubabka darandooriga ah aan laga isticmaalin, balse arrintan ayaa noqonaysa arrin ku cusub Somaliland waxa aanay tahay arrin ku suntan oo aan hore uga dhici jirin Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay. Mubaarak Cismaan Saciid, Somsa TV, Berbera.